madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cad International ee magaalada Muqdisho. wafdiga madaxweynaha uu hogaaminayo ayaa waxay ku sii jeedaan magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda, halkaas oo uu kula soo kulmi doono madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, isla markaana ay ka wada hadli doonaan arrimihii ugu dambeeyay ee dhinaca amniga ee dalka Soomaaliya. madaxweyne Shariif ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu la kulmo madax kale oo ka tirsan dowladda Uganda, kuwaas oo dhammaantood uga warbixin doono xaaladihii ugu dambeeyay dagaaladii ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya iyo qasaarihii dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada AMISOM dagaaladii ay gudaha magaalada Muqdisho kula galeen xarakada al-shabaab oo ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada AMISOM iyo siyaasadda dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya. agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Suldaan Axmed Faarax ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay safarka madaxweynaha waxa uu ku saleysan yahay iyo sidoo kale halka madaxweynaha sida rasmiga ah uu ugu degi doono. madaxweynaha wuxuu la kulmayaa madaxweynaha Uganda His Excellency Museveni iyo dad kale waxa laga wada hadlayana waxa weeye waxay ku saabsan tahay arrimaha hadda ka jira dalka ciidamada AMISOM iyo ciidamadeena hawlgalka ay wadaan wajiga hore waa ku guuleysanay hadda waxa loo hawlgalay waa wajiga labaad marka waxa laga hadlayaa sidii xiriirka iyo wada shaqaynta loo sii xoojiyo sidii loo dardargelin lahaana wajiga labaad marka waxyaalo kale waxa weeyaan xoojinaya xiriirkeena ku salaysan laakiin sidii hawlgalka intaan ka sii dambeeyay maadaama magaalada Muqdisho hadda badankeeda la qabtay shacabkiina loo helay fursad uu gaarsiiyo gargaarka bini'aadnimo in loo hawlgalo sidii deegaanada kale looga xoreyn lahaa dadka kale si shacabkeena dhibaataysan loo gaarsiiyo gargaarka bini'aadnimo. dhinaca kale xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay heshiiskii ay kala saxiixdeen xukuumadaha Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dhawaan ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu heshiis 20 qodob gaaraya uu la saxiixday ra'iisul wasaaraha dalka Kenya Raila Odinga iyo madax kale oo ka tirsan dalka Kenya ayaa waxay xildhibaanada baarlamaanka ka tirsanaa maanta oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah waxa ay soo dhaweeyeen heshiiskaasi waxaana ay sheegeen in dowladda Kenya uga mahadcelinayaan dagaalada ay kula jiraan kooxda al-shabaab gobolada Jubbooyinka dalka Soomaaliya. sida runta baryahan dambe waxaa jiray khilaafaad badan mas'adalo badan oo iska hor imaanayo hadaladii ayada waxaad moodaa maanta alxamdulillah inay soo aruureen oo lagu heshiiyay wixii khilaafaad meesha ku jiray ka baxeen marka hore waxaan soo dhaweynaynaa soo galitaanka ciidamada Kenya ay soo galeen gudaha Soomaaliya ayagoo la dagaalamayo muxuu ahaa xarakada shabaab oo ummadda Soomaaliyeed dal iyo dadba tirtirtay waxaan aaminaynaa aan soo dhaweynaynaa aan ka tacsiyeynaa walaalaheena dalka Kenya wixii dhibaatooyin oo ku dhacay ayaana ugu tacsiyeynaynaa waxaanu leenahay walaalaanu nahay dirisaanu nahay ma kala maaragno wixii idinku dhacayna Soomaaliya idinku ridi maxaa jira